السلام عليكم daawadayaal guuldarooyin badan oo nolosha ayuu wajahay quus ayuu ka istaagay nolosha waxa uu ku sugtay inuu istilo balse maanta halabuurkii uu sameeyay ka shaqeeya in ka badan $130 caalamka ku yaala waxa uu ahaa curadka qoyskooda ahna ka weyn saddex carruur waalidkii dhaleen aabihii waxa uu geeriyay isagoo 5 jir ah waxa uu bilaabay inuu carruurta walaalihii caawiyo markuu 16 sano gaadhay waxa uu iskaga hadhay waxbarashadii waxa uu bilaabay inuu shaqooyin badan galo balse dhamaantood waa uu ku guul daraystay waxa uu codsaday inuu ku biiro dugsi sharciga lagu barto balse waa laga diiday codsigiisa waa uu guursaday waxaanu dhisay qoys dhameystiran markii uu 19 jir ahaa ayuu noqday aabe balse xaaskiisa ayaa ka dhaqaajisay kana fogaatay iyadoo ka qaadatay ilmaheeda maadaama uu noloshooda maareyn kari waayay waxa uu dib u bilaabay inuu shaqooyin kala galo waxa uu maqaaxyar ka noqday saabaan weelka meydha iyo cunto kariye balse kuma raagin oo waa uu ka tagay waxa uu ku biiray ciidamada balse iyana kuma raagin oo waa uu ku fashilmay xarun tareenada ayuu ka shaqo bilaabay iyana waa uu ka tagay waxa uu ku biiray sidoo kale ganacsiga iyo iibgeynta balse shaqadaasna waa uu ku guul daraystay markii uu 65 sano jir noqday ayuu ka fadhiistay shaqooyinka isagoo aan wax horumar nolosha ka gaadhin waxa uu xilligaa ku sugnaa xaalad adag waqtiga ayaa ka xoog badiyay dawladda ayaa u qortay lacag gudnaa oo lagu qiyaasay $105 maadaama uu noqday qof daa oo aan xilligan shaqayn karin waxa uu ogaaday in dawladdu lacagta u siisay inuu yahay qof aan noloshiisa maareyn karin in badan ayuu noloshiisa canaantay isagoo ka murugaysan kana xun nolosha uu ku nool yahay iskuna arka qof nolosha ku guul daraystay waxa uu go'aansaday inuu istilo maadaama uu nolosha ku guul daraystay intii uu ku guda jiray qorshihiisii ahaa inuu istilo ayuu bilaabay inuu buug ku qoro waxyaabihii uu qabtay intuu noolaa isaga oo diyaarinaya qoridda waxyaabihii uu qabtay intii uu noolaa ayuu xasuustay inuu jiro shay aan weli qaban balse uu aad ugu fiican yahay qabashadiisa kaasoo ah cunno karinta khaas ahaan samaynta digaaga noocyadiisa kala duwan waxa uu soo amaaday lacag yar oo xaddigeeda lagu qiyaasay ilaa $87 waxa uu soo iibsay hilib digaag waa uu kariyay weliba si cajiib ah kadibna waxa uu bilaabay inuu magaaladii uu ku noolaa guryaheeda albaab u garaaco si uu guri walba u geeyo cuntada uu sameeyey si loo iibsado dadkuna warkaan hibadiisa cunto karinta una tijaabiyey markii ugu dambeysay mid ka mid ah fikradiisa ganacsi maalintaas ayay guusha nolosha u bilaabantay oo uu qaaday dariiqa dadka hodanka ah kana dhabeeyey riyadiisii dadaal badan kadib halabuurkiisa cusub ayaa gaadhay meel walba oo caalamka ka mid ah shirkadiisa cusub waxa uu ugu magac daray Kitchen Fried Chicken oo loo soo gaabiyey KFC guud ahaan Mareykanka oo dhan ayay ganacsigeeda iyo saamaynta cuntooyinka fudud uu ku baahiyey 8 sano markii uu jiray waxa uu ahaa bilyaneer iyo qof maamuus ku leh bulshadiisa ogsoono daawade inuu 65 sano jirkiisii uu ku sigtay inuu istilo isla waqtigaasna uu soo amaaday lacag $87 ah oo halabuurkiisa u horseeday qofkaan ka hadlaynaa waa Colin Harley Sanders ahna maamulaha iyo qofka iskala shirkadda KFC maanta KFC waa shirkadda labaad ee ugu weyn caalamka ee cuntooyinka fudud samaysa waxay xarumo kor u dhaafayaa 22,000 oo goobood ku leedahay $136 caalamka dakhligeedu waxa kor u dhaafayaa maanta $23 bilyan waxa aasaasay qof nolosha quus ka istaagay isagoo sameeyay halabuurkan cajiibka xilliyadii ugu dambeeyay noloshiisa Colin Sanders waa qofka ku sawiran loogada KFC ee meel walba caalamka laga helo xashakaanu ka baran karno sheekadan ayaa ah inaanay muhiimadu ahayn waqtiga aad bilaabayso inaad noloshaada horumariso kaliya waxa muhiim ah inaanad noloshaada ka quusan oo aad isku dil timaadid sidoo kale waxaanu ka baran karnaa inaanad waxaad jeceshay marnaba aanad ka quusan